habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo iskiis isu caleema saaray waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabka dhibaatada biyo ee si xumaanaysa ayaa ka taagan Cape Town bisha horaanta Abriil ayna biyaha ka go'ayaan magaalada madaxa hay'adda CIA-da Mike Bombay ayaa ka walacsan saameynta ay Shiinaha iyo Ruushka ku leeyihiin Yurub wuxuu sidoo kale ka walacsan yahay Iran iyo Kuuriyada Waqooyi xaflad ka dhacday magaalada Nairobi ayuu hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga iskiis isu caleema saaray waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabka isagoo ku adkaysanaya inuu ku guuleystay doorashadii hore u dhacday kumanaan taageerayaashiisa ah ayaa isugu soo baxay beerta Uhuru Park inkastoo boolisku ay mamnuuceen xafladaasi dawladda ayaa xirtay TV-yada ugu waaweyn ee gaarka loo leeyahay ee warkan sida tooska ah u tabinayay haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Nairobi inooga soo dirtay wariyaha BBC-da Sohayba Maxamed ugu dambeyn Raila Odinga waxa lagu dhaariyay xaalad aan kala cadayn taageerayaashiisa oo muddo 3 bilood ah aad u sugaya maalintanna lama uusan hadlin daqiiqada kadibna waa uu isaga tagay halka ay xafladu ka socotay kumanaan taageerayaal faraxsan ah balse ay haysato hubaal la'aan ayaa isugu soo baxay beerta xurriyadda si ay maalintan goob joog uga noqdaan haddii uu dhaco isbeddel goob ah diyaar baan u nahay haddii xataa ay Mombasa noqoto wanaadayna run ahaantii wax walba diyaar baan u nahay tani waa dawladdii shacabka awoodda waxa ay ku jirtaa gacanta dadweynaha sidaa darteed cid walba militarigii booliiskii ganacsatadii dhammaan maanta waa lagu marti qaaday aroortii hore ee saakay waddooyinka magaalada ayaa marnaa dad badanna ma aysan aadin goobaha shaqada iyaga oo ka cabsi qaba rabshado ammaanka ayaa aad loo adkeeyey balse booliska oo markii hore xiray goobta uu Raila doonayay in lagu dhaariyo ayaa baneeyay goobta waxayna u ogolaadeen taageerayaasha mucaaradka in ay gudaha u galaan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee sanadkii tagay balse mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa qaadacay doorashadaasi oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn madaxweynenimada Uhuru Kenyatta kadib dhaarta Raila oo dawladdu ay ku sheegtay mid sharci darro ah shacabka reer Kenya waxa ay ka dhursugayaan halkay isugu biyo shuban doonto siyaasadda dalkan oo muddaba aad loogu kala qaybsanaa Sohayba Badqas BBC Nairobi faahfaahin dheeraad ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga abaar ba'an ayaa soo food saartay caasimadda labaad ee Koonfur Afrika Cape Town dadka degan waxa qofkiiba maalintii loo qoondeeyay 50 litir oo biyo ah waxaana suuragal ah in maamulka gabi ahaan bixiraan qasabadaha horaanta bisha Abriil taasi oo ka dhigi karta Cape Town magaalada ugu horeysa adduunka ay biyaha ka guraan Qalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya waa muunadii Cape Town iyo quruxdii ay ku caan baxday geeska ugu qanisan qaaradda Afrika laakiin waxaa magaaladan oo hoy u ah 4 milyan oo qof si degdeg ah ula soo darsay biyo la'aan daran qoondaynta biyaha awgeed waxaa safaf loogu jiraa ceelasha biyaha waxaa jirta cabsi iyo hubaal la'aan khibrad dara awgeed waxaan ka cabsi qabaa waxa soo socda dhibaatadani waa mid ka dhalatay abaar dheer oo 3 sannadood ku qallajisay webiyada laga waraabiyo magaalada Cape Town khubradu waxay abaartan ku eedaynayaan isbeddelka cimilada iyo heer kulaylka adduunka oo khalkhal geliyay xilli roobaadkii caadiga ahaa saadaalintan oo dhanna waxaa laga sameeyay saamaynta isbeddelka cimilada ee dhacaya ee hadda nagu dhacaya annaga oo u jeedna kuna dhacaya caalamka oo dhan walwal iyo cabsi daraaddeed maamulka magaaladu waxay bilaabeen qodista ceelasha biyaha si looga daba tago biyaha roobabka da'ay malaayiin sano ka hor laakiin tani waa geedi socod gaabis ah sidaa daraaddeed dadka Cape Town waxay isu diyaarinayaan abaar xun dad badan ayaa hadda raadinaya habkii lagu wajihi lahaa caqibadan waxayna internetka ku wadaagayaan talooyinka kaydinta biyaha
waxaa durbaba boqolkiiba 50 la dhimay isticmaalka biyaha. waa inaynu muujinnaa wadajir iyo midnimo qaran si qof kasta ay u helaa mustaqbal wanaagsan iyo adeegyada asaasiga ah. waxaynu dhammaanteen u baahan nahay inaynu isku duubnaanno si qof walba ay u helo adeegyo joogto ah wakhti kasta. laakiin dadka qaarkood uma hoggaansanaa sharciga. booliiskuna waxay ugaarsanayaan dadka ka ganacsada maydhista baabuurta. magaaladan harraadani waxay u dagaalamaysaa dhibic kasta oo biyo ah, waxayna dhowraysaa daruuraha dul heehaabaya buurta mount. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in $106 bilyan oo dollar laga helay lacag musuqmaasuq ku maqnayd. lacagta ayaa laga soo celiyey boqolaal amiiro, siyaasiyiin iyo ganacsato maalqabeenno ah kuwaasi oo la xiray bishii November. hantida ayaa isugu jirtay lacag caddaan ah iyo hanti kale. 60 ka mid ah dadka la xiray ayaa hadda la sii daayey. mas-uuliyiintuna waxa ay sheegeen in lacagta la helay lagu bixin doono dadka saboolka ah. gooni u goosatada Yemen ee Imaaraadka Carabtu taageeraan ayaa hareereeyay qasriga madaxtooyada magaalada Cadan kadib 2 maalmood oo dagaal xooggan uu socday. qasriga waxaa degan dowladda madaxweyne Haade ee Sacuudigu taageero, kaasi oo lagu qasbay inuu ka cararo caasimadda Sanca markii fallaagada Xuutiyiinta ay qabsadeen waqooyiga Yemen sanadkii 2015. iyadoo ay jirto dibadbaxyo baahsan iyo baaqiyo la xiriira qaynuuno wanaagsan ay booliiska magaalada Delhi ee waddanka India waxay sheegayaan in gabar 8 bilood jir ah ay ku jirto xaalad halis ah kadib markii sida la sheegay la kufsaday, waxayna u baahan tahay qalliin 3 saacadood soconaya. 28 jir ehelkeeda ah ayay booliisku u xireen sanadkii 2015. waxaa India laga soo sheegay in 11,000 oo carruur ah la kufsaday. sawiradan kooban ayaa muujinaya volkaanaha buurta Mayon ee Filibiin oo burqanaya. butaaca iyo dambasta dhagaxa dhalaalay ayaa la arkayay 2 toddobaad ee la soo dhaafay, waxaana jira cabsi ah in qarax weyn uu dhaco maalmo gudahood. in ka badan 75,000 oo ruux ayaa ka guuray qaybaha khatarta ah. madaxa hay'adda CIA-da ayaa BBC-da u sheegay in ay wax walba ka filanayaan in Ruushka ay isku dayayaan in ay farageliyaan doorashada wakiilada labada aqal ee Mareykanka ee dhacaysa November. waraysigii ugu horreeyay ee caalami ah, Mike Pompeo waxa uu soo jeediyey in Kuuriyada Waqooyi ay yeelan karto awood ah hubka nukleerka ah, isla markaana ay jirto halis ah oo sii kordhaysa oo ka imaanaysa Shiinaha. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. xarunta CIA ee agaasime Mike Pompeo liis qorshooyin badana ayaa u yaal. eedeymaha in Ruushku farageliyo siyaasadda Maraykanka ayaa ugu jira ajandaha sare, laakiin waxa uu ii sheegay inuu ka walacsan yahay saamaynta Shiinaha. indhaha ayaannu ku haynaa tallaabooyin la isku dayayo in la xado war Maraykanku ay leeyihiin, in la soo dhex garo basaasiinta waddanka Maraykanka, dad u shaqaynaya dhinaca dowladda Shiinaha oo ka soo horjeeda Maraykanka. waxa aan ku aragnaa iskuullada, cusbitaallada, hay-adaha caafimaadka, waana xarriiq ka jirta meel kasta oo dunida ah. oo Yurub iyo UK miyay ku jiraan? dabcan Yurub iyo UK way ku jiraan. madaxa CIA waxa uu ii sheegay in ahmiyad kale ay siinayaan ka hortagga Iiraan iyo Bariga Dhexe. ma ka walwalsan tahay heerka saamaynta Iiraan ee Suuriya iyo gobolka? ma jiraan qaab aad is leedahay waad uga hortagi kartaa? miyaadan ka walacsanayn gaar ahaan tan u dhaxaysa Iiraan iyo Sacuudi Carabiya in ay abuurto dagaal? aad ayaannu taa uga warwarsannahay. waxaan u baahannahay inaannu hubinno inaanay waxaasu dhicin. arrinta kale ayaan ku hubin karraa waxa ay tahay in dadka Iiraan ay fahmaan inaanay iyaga u wanaagsanayn. bannaanbaxyada ay sameeyeen toddobaadadii ina soo dhaafay, dadka reer Iiraan way fahamsan yihiin meelaha ay doonayaan inay ka dagaalamayaan sida Yemen inaanay wax macnaa samaynaynin, in Iiraaniyiini ay ku waayayso 10 milyan oo dollar, khasaare nafina ay imanayso. taariikhda waddanka Iiraan way qoto dheer tahay. waxaan rajaynayaa in ay kacaan, inay fahmaan inaanay dantooda u wanaagsanahayn dalkooda inay ciidamo u diraan meelo ay ka faa'iidaysanayaan sida Yurub oo kale, oo ay isku dayayaan inay khalada ka sameeyaan Yurub.
waannu ka niyad wanaagsannahay dadka reer iiraan taa inay fahmi doonaan isaga oo bilaabaya sanadkiisii labaad madaxa CIA Mike Pompeo wuxuu og yahay caqabadaha oo ay ku jirto Washington inaanay iska dhammaan doonin. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska caawa waxaa jira 3 ciyaarood oo waaweyn. Swansea waxay ku aadan tahay Arsenal halka West Hamna ay ku beegan tahay Crystal Palace. Huddersfield iyo Liverpoolna way isku aadan yihiin ka hor ciyaarta. Maamulaha Liverpool Klopp waxa uu sheegay kadib guuldaradii u dambeysay in ay kooxdiisu tahay in ay guul hesho hadda. Manchester City oo ugu koreysa horyaalka Ingiriiska ayaa ku soo aaday kuwa ugu sareeya qaybta saddexaad. Wigan ayaa u soo gudubtay wareegga shanaad waxayna u eg tahay sidii FA Cup-ka finaalkii dhacday sanadkii 2013. West Brom ayaa deyn kaga soo qaadatay Liverpool weeraryahanka England waa Daniel Sturridge ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. wararka kale ee suuqa ciyaartoyda Arsenal ayaa ku doonaysay 60 milyan oo geni weeraryahanka Aubameyang ee Arsenal ayaa ogolaatay qarashka Dortmund iyo shuruudihiisa ciyaartoygan reer Gabon Aubameyang balse naadiga Jarmalka ayaa ogolaashiisa ku xiray markii ay bedel helaan. sanad wanaagsan ayuu u ahaa suuqa badeecadaha kadib qorshaha madaxweyne Duterte uu ku maalgelinayo in ka badan 150 bilyan oo dollar mashaariicda kaabayaasha 2022 markii uu horeysay muddo 20 sano ah wuxuu madaxweynaha marsiiyay sanadka in dib u qaabayn lagu sameeyo canshuuraha. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ka waramaya. madaxweyne Rodrigo Duarte waxaa lagu doortay halgankii uu ballan qaaday horumarinta dhaqaalaha iyo inuu wax ka qabto saboolnimada Philippines. waa fariintii uu u muujinayay taageerayaasha sida Lydia Hensa oo 70 jira oo $4 samaysa maalintii markay bacaha caaga ah kala soo baxdo xashiishka. waxay ka mid tahay 10 milyan oo reer Philippines ah oo dakhligooda uu hoos u dhaafay khadka saboolnimada. waxaan rajaynayaa inuu caawiyo dadka saboolka ah. wuxuu yahay rajadeydii ugu dambaysay. madaxweynayaashii hore waxba kamay soo bixin. waxaan rajaynayaa inuu ballankan ka soo baxo. waa Lydia oo kale dadka madaxweynuhu uu leeyahay waxaan isku dayayaa inaan caawiyo isbeddelka dhowaan uu doonayo in lagu sameeyo cashuuraha. laga bilaabo bishan January qof kasta oo dakhligiisu uu ka yar yahay $5,000 waa laga reebayaa cashuur bixinta dawladda. ganacsi kasta oo dakhligiisu sanadkii uu yahay ilaa $60,000 ma bixinayaan iyaguna cashuuraha la saaro waxa iibiyaan. si dawladdu ay isugu miisaanto arrinta waxay kordhinaysaa waxa ay ku tilmaantay cashuurta dembiga oo ah in la saaro waxyaabaha caafimaadka dadka waxyeela iyo deegaanka. waxaan filayaa cabitaanada la miceeyey inaysan caafimaadka u fiicnayn xitaa dadka saboolka ah. haddii aan dhaqankeenna bedelno faa'iidooyinka caafimaad way badan yihiin ee laga helayo noocyada canshuurahan. dawladdu waxa ay doonaysaa inay fududayso habka cashuuraha si dakhli badan loogu helo mashaariicda waaweyn ee la dhisayo sida waddooyinka. mashruuca ugu weyni waxa uu yahay tareen hoos mara magaalada Manila ee caasimadda ah oo socodka gaadiidku aad u xun yahay. ciriiriga waddooyinka nooga luma in u dhaxaysa 40 ilaa 50 milyan oo dollar maalintii. dhaqaale badan ayaa saas nooga luma. haddii aanu doonayno in wax soo saarka gudaha uu gaaro 7% sanadaha soo socda oo aanu ka baxno saboolnimada, kaabayaasha ayaa arrintan kaalin weyn ka ciyaari kara. dawladdu waxa ay doonaysaa wax weyn inay ku bixiso dhiska, laakiin malaayiinta aan shaqada caadiga ah haysan sida Lydia weligood baa cashuur may bixin. laakiin cashuuraha la kordhinaya waxa aad moodaa ciriiri inay gelin doonaan miisaaniyadda qoyska. bal ka waran haddii robot uu ku diyaariyo qaxwaha aad subaxii cabto. waa mid ka jiri doonta meelo kale balse waddanka Japan ayuu mashiinkan la yiraahdo soya uu marka hore diyaarinayaa cabitaanada kulul halka markiiba wuxuu samayn karaa dhowr koob waxayna ku qaadanaysaa ilaa iyo 4 daqiiqadood. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bogga bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. inta aan kulmi doonno habeen dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.